kala hadlay qorshaha dib u habeynta ciidamada beesha caalamka oo madaxda dowladda Soomaaliya ku cadaadinaysa ka qaybgalka shirka magaalada Garowe xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in shirka iskaashiga ururka Islaamka ee maanta lagu qabtay Muqdisho ay marqaati ka tahay ammaanka caasimadda oo soo hagaagaya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday askari hore dil ugu geystay darawal ciidamada Jubbaland oo dagaal kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose galabtan isaga baxay wasiirka arrimaha dibadda oo la kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Qatar xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka dooday hindis sharciyeedka shirkadaha ganacsiga shirka madasha kalluumaysatada Soomaaliyeed oo ka furmay Garowe iyo khudbada laga jeediyay iyo dowladda Sri Lanka oo haweenka dalkeeda ka mamnuucday xirashada indha shareerka habeen wanaagsan waa Isniin 29 bisha Abriil 2019 ku soo dhawaada faahfaahinta warka habeen beesha caalamka ayaa la sheegaya in madaxda dowladda Soomaaliya ay ku cadaadinayaan inay ka qayb galaan shirka lagu wado in bisha soo socota labadeeda uu ka furmo magaalada Garowe Maxamed Abuukar ayaa faahfaahinaya beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii u qabsoomi lahaa shirka lagu wado labada bisha May inuu ka dhaco magaalada Garowe caasimadda Puntland kaasoo ay isku imaanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa ku dhawaaqay in labada bisha May uu Garowe ka furmi doono shir wada tashi ah kaasoo ugu baaqay madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxda maamul goboleedyada inay ka soo qayb galaan shirkan oo ah mid wada tashi ah lagana tashan doono halka wadanka uu socdo xilligan wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in diyaar garowga shirkan uu ka soo bilowday magaalada Nairobi halkaas oo saddexda maamul goboleed ee Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ay kula kulmeen wakiilada beesha caalamka ayaguna u gudbiyay cabasho ka dhan dowladda federaalka Soomaaliya cadaadisna lagu saaray dowladdu in wax ay ka bedesho siyaasadda markan ay ku wajahayso maamul goboleedyada xubnaha beesha caalamka sida safiirka Mareykanka ayaa la sheegayaa in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku cadaadinayaan in shirkaas ay ka qayb galaan isla markaana uusan naqan sida shirarkii hore u baaqday bisha Maaj ayaa gogol waxaa dhigay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani caleemsaarkiisa kadib waxaana gogoshaasi uu noqotay mid dib u dhac uu ku yimaado sabab aan la shaacin sidoo kale martiqaadka madaxweyne Farmaajo u diray madaxda maamul goboleedyada 19 bishan Abriil si dhamaanaysa shir inay isku yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa asna qabsoomi waayay taas oo ka dambeysay kadib markii ay diideen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada in ay ka qayb galaan shirkan qaarkoodna waxay ku xireen shuruud ka qaybgalka shirka lagu waday 19 bishan inuu ka dhaco caasimadda dadaalada beesha caalamka ay wadaan ayaa ah sidii dowladda dhexe iyo waliba maamul goboleedyada ay isku fahmi lahaayeen wada shaqeyn u gaaran u wada yeelan lahaayeen muddada labada sano ee hartay waxaana shirka golaha amniga qaranka lagu waday in Muqdisho ka dhaco uu baaqday kadib markii madaxda qaar ee maamul goboleedyada ay diideen kuwana ay shuruud ku xireen ka qaybgalka si kastaba ha ahaatee shirka Garowe ayaa si gaar ah isha lagu hayaa waxyaabaha ka soo bixi doona iyo waliba isfahamka ay wada gaari doonaan madaxda sidoo kalena waxaa isha lagu hayn doona madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in ay si wada jir ah u tagi doonaan magaalada Garowe iyo in kale inkastoo su'aal la geliyay hab maamuuska ahaan qaabka uu madaxda dowlad goboleedyada sida Puntland uu casuumaad ugu dirtay shirka Garowe madaxda maamul goboleedyada asaate arintan ayaa waxay imaanaysaa xilli toddobaadyada ugu dambeeyay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ay shirar gaar ah ku wada qaadanayeen madaxda maamul goboleedyada qaar sida Jubbaland, Galmudug iyo waliba Puntland iyo xubnaha beesha caalamka warar qaar aan helin waxay sheegeen in isla gartay in dowladda Soomaaliya cadaadis lagu saaro sida ay wada shaqeyn buuxda u dhaxmaray lahayd dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo hadda khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka ururka iskaashiga Islaamka ee maanta lagu qabtay Muqdisho uu marqaati ka yahay sida ay u soo hagaagayso ammaanka magaalada iyadoo maanta magaalada Muqdisho uu ka furmay shirweynaha ururka iskaashiga Islaamka isla markaana ay ka qayb galayaan culimada diin Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobolada dalka waxaa daahfuray ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed shirka ayaa looga hadlayaa badqabka fikirka iyo la dagaalanka waxa loogu yeero xagjirnimada
mahdi maxamed guuleed khadar oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya hadal kooban oo munaasabada furitaanka ka jeediyey waxa uu sheegay in fikirka xagjirka ah uu ku cusub yahay soomaaliya islamarkaana uu yahay aragti lasoo dhoofiyey. wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in shacabka soomaaliyeed ay yihiin dad nabadda jecel dhexdhexaadna ah shaqana aan ku lahayn fikirka xagjirka. mahdi guuleed ayaa sheegay in shirkan oo ah shirweyne caalami ah oo lagu qabtay magaalada muqdisho ay markhaati u tahay sida uu usoo hagaagayo ammaanka magaalada, isaga oo tilmaamay in wadamada ku bahoobay ururkan iskaashiga islaamka ay kaalin ku yeeshaan ka wacyigelinta shacabka soomaaliyeed waxa loogu yeero argagixisada. maxay doonayaan hadafkay rabaan inay dhiig daadiyaan, inay qarax sameeyaan, inay dad laayaan. hadafkay ka rabaan maxay tahay? maxaa uga soo baxaya? hadday ummadi u halganta jiritaan wax allo wax nimankaa uga soo baxaya ma jirto aan ahayn in fawdo iyo amni darro la abuuro. waxaan aaminsanahay khubarada isu timid ee muslimiinta adduunka wadamada islaamka ee walaalaha nahay ah madax iyo khubaro kalaba leh culimaadudiinka Soomaaliyeed haddii aad fikirka iyo ra'yiga isku biirisaan labadan cisho inay noo soo bixi doonaan talooyin wax ku ool ah oo ka turjumaya sida aynu ula dagaalami karno fikirka xag jirka iyo sida aynu uga badbaadin karno dhalinyaradeenna. waxaa maanta inoo muuqata in Soomaaliya dib isu taagayso, amni lagu kalsoon yahayna ka dhalanayo. in maanta lagu qabto shirweynaha islaamka adduunka la isugu yimaado magaalada Xamar Soomaaliya ay ka dhacdo waxay ka turjumaysaa amniga inuu dib u soo noqonayo, nabadgelyadu sii adkaanayso, dowladnimadu sii adkaanayso, Soomaaliyana xubintii firfircoon ee ahayd ee ay dunida ka ahayd ay ku soo noqonayso. shirweynahan waxaa ka qayb galaya 12 wakiilo dowladeed oo xubno ka ah ururka 30 caalim oo ka kala socda wadamada islaamka iyo 12 ka mid ah culimada diinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed. shirka ayaa inta uu socdo waxaa aad looga doodi doonaa fikirkan xagjirka asal ahaan halka uu ka yimid iyo sida ugu habboon ee loola dagaalami karo iyadoo culimada la isticmaalayo. ciidamada maamulka Jubbaland ayaa al-shabaab waxay kala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Cabduqaadir Maxamed ayaa faahfaahinaya. wararka laga helayo deegaano hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaano hoostaga degmadaas. howlgalka oo ah mid qorsheysan ayaa ciidamada waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaan lagu magacaabo Xagar oo ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab. waxaana la sheegay in dagaal kooban oo labada dhinac halkaas ku dhexmaray ay ciidamada Jubbaland kula wareegeen deegaankaas. saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen ama iska caabin buuran aysan kala hor imaan al-shabaabkii ku sugnaa deegaanka Xagar isla markaana ay haatan ku soo yihiin ciidamada Jubbaland. waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan inuu jiro khasaare labada dhinac ka soo gaaray dagaalka ha yeeshee aysan jirin cid madax bannaan oo xaqiijinaysa. ciidamada Jubbaland ayaa lagu soo waramayaa in maanta dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyadoo saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ay sheegeen inay wadaan howlgallo ay al-shabaab uga saarayaan deegaanada gobolada Jubbooyinka. si kastaba warkan ka soo baxay saraakiisha ciidamada Jubbaland ee howlgalka ka fuliyay deegaano hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose wali al-shabaab dhankooda kama aysan hadlin. hayeeshee saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay inay al-shabaab ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Jubbooyinka. wararka galabta ka soo baxayay deegaanadaasna waxay sheegayaan in ay dib isaga baxeen ciidanka Jubbaland iyadoo aan la sheegin in dagaal walkaasi ka dhacay, laakiin waxaa la sheegay inay dib uga soo gurteen ciidanka maamulka Jubbaland oo dib ugu soo laabtay saldhigyadii markii hore ay duulaanka ka qaadeen. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho ah ku riday askari lagu eedeeyay dilka darawal. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dil toogasho ah waxay ku xukuntay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed kaas oo nin darawal ahaa ku dilay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. askariga dilka lagu xukumay ayaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Xasan Maxamed Cali kaas oo loo haysto dilka darawal gaari BL ah oo 6dii bishii Janaayo ee sanadkan 2019 ku dilay agagaarka Siinka Dheer. kiiska oo socday tan iyo bishii Janaayo markii dilka dhacay ayaa maxkamadda la hor keenay cadeymo kala duwan waxaana darawalka
la dilay lagu magacaabi jiray maxamed ismaaciil qaboowe waxaana sidoo kale ku dhaawacmay toogashadaas rakaab saarnaa gaariga oo lagu magacaabayay maxamed cali xasan kaasoo dhaawac culus uu soo gaaray. xafiiska xilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa kusoo ogaatay in eedeysanaha uu si jees-jees ah u toogtay darawalka xilliga uu dilka geysanayay uusan tixgelin gaar ah siinin wadaha gaariga ee u istaagay si uu u aqbalo hubinta sharciga ee siinka dheer oo uu mari jiray. intaas kadib ayay maxkamadda go-aamiyeen in lagu xukumo eedeysana cabdulaahi xasan maxamed cali dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum maxamed ismaaciil qaboowe sida uu u sheegay warbaahinta gaashaanlo dhexe